Assalaamu calaykum daawadayaal. Dal muddo 20 sano ka badan dagaal sokeeye ku jiray oo malaayiin qof iska laayay. Maantana mid ka mid ah wadamada ugu kobaca dhaqaalaha sareeya dunida. Uguna soo wax soo saarka badan dal tusaale waa dal kasta oo xaalad adag ku jira hadda. Vietnam waxay dhacdaa koonfur bari qaaradda Aasiya, khaas ahaan jasiirad lamoodka Indochina. Waa dal ay ku nool yihiin 97 milyan oo qof. Waxa uu ku jiraa kaalinta 65aad dhanka baaxadda dhulka. Sidoo kale waa dalka 15aad ee ugu dadka badan dunida. Waa dal muddo 20 sano ah laga soo bilaabo 1955 ilaa 1970 ku jiray dagaal sokeeye u dhaxeeya waqooyiga iyo koonfurta. In ka badan 1 milyan oo qof ayaa uga dhimatay dagaaladaasi dalkaasi. Waqooyiga oo doonayay nidaamka shuuciyadda ayaana guuleystay. Markii dagaalku dhamaaday ee labada qaybood ay midoobeen, Vietnam waxay xilligaasi ku jirtay xaaladii ugu xumayd abid. Dhaqaale ahaan ayaa la go'doomiyay, 8% dadkeedu waxay ku noolaayeen wax $1 ka yar maalintii. Inta badan magaalooyinka dalka la yidhi biyo nadiif ah lagama heli jirin. Xaddiga faqriga ayaa halkii ugu sarreysay gaadhay, kaliya qof kale baabuur ama mooto ayaa loo arkayay dalkaas qof taajir ah ama hanti haysta. Sanadkii 1986 dawladda Vietnam ayaa dejisay nidaam dhaqaale loogu magac daray Diem Moi Plan oo macnaheedu noqonayay dib u cusboonaysiinta dhaqaalaha. Halgan adag oo ay dadka reer Vietnam iyo dawladoodu galeen waxa ay noqdeen kuwo hormuud u ah kobaca dhaqaalaha caalamka. Waxay hormuud u yihiin dalalka ugu koridda badan xagga dhaqaalaha dunida. Sanadkii 1993 xaddiga faqrigu wuxuu ahaa 3%. Maanta waa wax ka yar 3%. Dakhliga soo gala celcelisaan sanadkii qofka Vietnamese waa $8,000. Dhaqaalaha dalku waa ku dhawaad 300 bilyan. Heerka shaqo la'aanta dalka waxay ka maraysaa wax ka yar 3%. Waana mid ka mid ah dalalka ugu hooseeya dunida xagga shaqo la'aanta. Dhanka waxbarashada iyo cilmi baarista 95% dadka reer Vietnam waa kuwa wax qora waxna akhriyi kara. Sidoo kale ku dhawaad 20 bilyan oo dalxiisayaal ah ayaa soo booqda Vietnam sanad walba. Waa dal leh wax soo saar aad u sarreeya. Alaabta uu dibadda u dhoofiyo dalka Vietnam waxa ay kor u dhaafaysaa 220 bilyan oo dollar. Qorshahaas Diem Moi Plan ayaa wadada badhaadhaha ku hagay Vietnam. Maanta waa nidaam dhaqaale oo horseeday inay Vietnam noqoto dal dhaqaale ahaan, aqoon ahaan iyo nolol ahaanba aad u horumaray. Vietnam waa dal nidaam ahaan shuuci ah oo raacsan nidaamka shuuciyadda ee Shiinaha, balse nidaamkiisa dhaqaaluhu yahay mid xor ah oo raacsan kan dalalka reer galbeedka. Wadankaasi waxa uu dejistay qorshe horumariyay oo ka dhigay inay noqdaan kuwo hormuud u ah kobaca dhaqaalaha dunida. Sanadkan ayaa la rajeynayay in Vietnam ku biirto wadamada horumaray developed countries. Sidoo kale 2025 waxaa la rajeynayay in Vietnam ka qayb noqoto 20 dal ee dhaqaalaha dunida hogaamin doona. Vietnam waa tusaalaha weyn ee Soomaalidu ku dayan karto. Vietnam waa dal horumarka uu gaadhay iyo wadada uu maray maanta in badan wadamada caalamka iyo goobaha waxbarashadu aad u daraaseeyaan. Hanoi waa caasimadda dalka, halka Ho Chi Minh ay tahay magaalada weyn dalkaasi, taasoo hore magaceedu ugu ahaa Saigon intaan loogu magac darin hogaamiyihii waqooyiga dalkaasi ee Ho Chi Minh.